madaxweynuhu gorgortan hadda muuqdo oo galay anigu ma arko wuuna imaanayaa markuu yimaado oo khudbada jeediyo kadib ha noo ahaato iga waraysta taas haddii uu ka laabto waxay ku xiran tahay jidkaas ugu laabtay ku xiran jidkaas ugu laabtay ku xiran tahay jidkaas ugu laabta haddii codsi baarlamaanka u jeediyo haddii qofka uu ku codsado ama waa ka aqbalay ama waa ka diiday haddii laakiin inta xafiiskiisa tago uu yiraahdo waa ka laabtay hada taas waxa weey wax kale ay noqonaysaa laakiin madaxweynaha asaab baarlamaanka u soo socda aan sugno ayaanan ka hordhicin wax walba aad ma واك تيفي واك تيفي واك الله يكرمك هو يوصل هنا حافظ هنجرني بسم الله ماشي حاجه دي جوز وزيركي او رزاري او لبنان نقول وياه ما يشوف محمد بالعبد محي ورثتين اختيار مثل هنا كاب بالله هذا ازديارنا سوا ذيك هي حق ولا بس كلام ارتي ان ما بالله انا دوس ديار هو ما معك هذا من هاي بالحلو انا كور ما بلا شعب مدعوينها ورمانا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله دمانتي وان سلاميا شعبنا داوانيا جمهورك سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنتوا ومانو وين الحمد لله رب العالمين دلكوا النبض مجال المدشوا النبض واحد بها بيرات يجري مجرو ما أنتوا حنفرنا إنه مدحونا برنامج نوصل بوقده سواء كهذا الله كليته أجندها كسابسا إن ما تقنا الرميه يكسو ودشيا نسجا برايم مينستر كا يوم مدحونياش الدول قبل هذا كونفور البيت قل مدوك هرشبيل يو متقنا ميرك مقالة مقدشو قدوميها قومك بنادر ورفنش عرفتي أد وانا سميت أد لو دوي أد لو متقنا الرياضة اللي هم هدعيني إلهي سبحانه وتعالى وانا قبرينا لما نتمنى أو نور لما يسترون إنه قلبه برعوس وكاي مريض وحرجينا إن شاء الله تعالى إن ومدعونا اللي يمادوا السيدة كلها أرجينا إنه إن شرعي وبرنامج أنسعيه هاي جهين تدور شويك لكن سيدة خلطان لو فسري أو رونيسي مدكورين لبصنا على قد جاي لكن أنا هين جهينta doorashooyinka dalka oo ku dhamaanaysa muddo 2 sano bil bay ku dhamaan kartaa 6 bil bay ku dhamaan kartaa sanad bay ku dhamaan kartaa 2 sano gaari kartaa marka laakiin sicir ka daran baa la yiri waa sicir baa loo fasiray ummadii baa lagu qaxiyay dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay mas'uuliyadaasna waxa iska leh ilaahay hortiisa qofkii ka shaqeeyay in xabadaas la qaato oo ummadaas lagu rido oo ummadaas ay ku dhaawacmaan maaha ma taqaanaa dadka qaarkood iskaga hadaaqayo dhahayo baarlamaanka ayaa mas'uulka wixii meesha ka dhacay baarlamaanka go'aan buu gaaray xabad ma qaadan qorin ma qaadan bagroofna ma qaadan ummadana baqaxin ma dhihin guriyana ka baxa ma dhihin askarintu ka soo bixiyay xiriyoodana geel uma qalno ma taqaan dadka garaaca ma dhihin bixiya hala dila ma dhihin waana wax aad looga xumaado magaca baarlamaankana berri baad imaanaysaa oo parliamentarian tahay noqon doontaa xukumi doontaa mas'uuliyadeeda qaadi doontaa كل حق ولو كان مرة wax laga xishoodo maaha in xaq laga sheega fiican waxa mas'uuliyadda qaadayo qofkii maalintaas oo Ramadaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sheedaamada xiray sheedaan u soo noqdo sheedaan is u soo noqday qori u soo qaatay ummadda mataqaaqi kaas mas'uuliyadda qaadayo waxaan rajaynaynaa in la keeno sharciga dib loogu soo celiyo baarlamaanka annagu marka waa garanaysan maanta baarlamaanka wuxuu fadhiisanayaa shir غير caadi ah shirkaas غير caadi ana wuxuu keenayaa in
looga hadlo lana gaarsiiyo in dib loogu celiyo madaxweynaha inuu decreto presidential ku soo saaro haddii ilaahay raalli ka noqdo decreto presidential ku soo saaro wixii lagu heshiiyey maanta in dib loogu celiyo waxay noqonaysaa in doorashadii dadbareed ee lagu soo heshiiyey ee madaxweynayaashayadii mataqaanaa dowlad goboleedyada iyo guddigii farsame ee magaalada baydhabo qodobaday soo qoreen heshiiskaas oo dib loo mataqaanaa loo wada fadhiisto laga hadlo la saxiixo kabacdina dib loogu noqdo doorashadii dadbareed ee ummadda soomaaliyeed ee u dareerto doorasho waa mahadsantihiin waxaan aad uga xumahay waxaad kala garanaynin cows iyo action aad kala garanaynin mar haddii qofka aqoonta moogta haddee nagu yarta dhib bay keenaysaa dad ma eedeenin waxaan ku eri waxaa mas-uuliyadda ilaahay hortiis qaadaayo qofkii xabadda qaatay ee riday ee qofka ama dhaawacay ama dilay baarlamaanka xabadda ma qaadan qorina ma qaadanin dabda ma barakicinin bagarofil intuu qaatay ka baxa ma dhihin guryaha waan baasantay su-aasha waa kaa xiranta adiga soco ya sababta fiiri aniga haddaa inaan dhintan rabo malakaboodku ay baar nafta iga qaadaya laakiin sababta waxaa waaye korona ku dhacay beerkaa laga qabtay sukorowa ku dhacay habartiisa mindhi gelisay waxaas oo dhan sabab la sheego waay sabab maaha taas waxaan kaa codsanaa waxaa waaye ogow waad sooman tahay hadalkas waxaa la yidhi sixu u sheeg sixir waa ka daran yahay ilaahay subxaana wa tacaala raqiib iyo catiid buu garbaada saaray mas-uuliyaddeedana waad qaadaysaa haddii ololo aad abuurtid oo hadal xun ay shacbigaas masaakiinta u gaaro ee dhibaataysan ee maanta joodariyaasha qaxa darbaha u saaran yahay ilmahan ay gacanta ku wataan af adig kaa soo bax darteed hadduu qofka dariiqa ugu dhex dhinto mas-uuliyaddeeda adaa qaadaya ilahay hortiisa ogoona qiyaamaha nina kaama cafinayo wallahi so qabiilna kuu imaanaynin qabriga maalinta lagu liyaar kugu dambaynayso daarsalaam laguguma dugaa wili waxaa lagugu dugaa macal nuur أيه صحيح أيه أو صاحبك أو صاحبك أو صاحبك قروين أو وكي جواب زي لكن لا يرغب الشيء بوده كاسين القبنا مو هل شيء لو اسكسي ليه ورقص كقبنا يا مركلم ابو تلفونك كلها واحد هي لكن منك ليه مركات لايف مياه